idinku soo dhaweynayaa fagaarihii sideedaad oo aan nasiib ugu yeelanay inaan ku qabanno caasimadda dhulkeena hooyo Muqdisho Soomaaliya. Fagaaraha waa kulan looga hadla arrimaha Soomaaliya quseeya. waxaana soo qabanay 7 kulan oo kala duwan oo aan uga hadalnay arrimo Soomaaliya quseeya. waxaa farxad maanta noole inay suurto gashay in fagaaraha uu ka dhaco halkan magaalada aan ku dhashay. aad iyo aad ayaan riil u faraxsanahay. fagaaruhu wuxuu ka shaqeeyaa isku soo dhawaashaha ummadda Soomaaliyeed. waxaana soo qabanay kulamo fara badan oo looga hadlay federaalka, looga hadlay doorka haweenka, looga hadlay sida wada shaqeyn lahaayeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. marka kulankan sideedaad oo really noo suurto gashay inaan ku qabanno caasimadda waddanka Soomaaliyeed sida iga dareemaysiin emotionkaygu haya because waxaan rabay inaan tuso in fagaaraha lagu qaban karo magaalada caasimadda Soomaaliya. aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa intii ii suurto gelisay oo barnaamijkan really inuu dhaco oo dhammaantiina waxaan really aad iyo aad ugu mahadcelinayaa nin walaalkay aad ila shaqeeyo really diraac fagas oo ma taqaan arrintan aad igala shaqeeyo diraac aad baa u maasan tahay. waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa saaxiibkay Cabdinaasir iyo Khays aad iyo aad u maasan tihiin. waxaan kaloo u mahadcelinayaa idinka dhammaantiin ka soo qaybgalayaasha iyo sababtu waxay tahay fagaaruhu waa goob wada hadal. anigu waxaan aaminsanahay waxa weeye fagaaruhu promote dialogue and consensus about Somali issues. ummad haddayna wada hadlin horumar ma gaarto. fagaaruhu waa civic discourse. waxaan aad iyo aad u jecelnahay inaan really isdhegaysano oo xushmayno dadka martida halkan qaaliga noo ah markay maanta doodaan aan galno. barnaamijka sideedaad ee fagaaruhu wuxuu ku saabsan yahay governance, dowladnimo. sidee dowladnimo wanaagsan Soomaaliya ku gaari kartaa? sida aan la wada soconno doodka ma jirto in Soomaaliya dowladnimadii naga xumaatay. ilaa sanadkii 2000 ilaa hadda waxaa Soomaaliya soo martay 3 madaxweyne iyo 10 ra'iisul wasaare. marka sidee ku dhacday? mar walba madaxweynaha markuu waddanka qabsado madaxweynayaashu waxay dhahaan especially madaxweynaha hadda waddanka Xasan Sheekh Maxamuud September 10 markuu wasaaraha soo xulinay Cabdi Faarax Shirdoon wuxuu yiri isqabqabsi aan dhici maayo. laakiin isqabqabsiga waa dhacay. taas waa xukuumadda inay dhacdo. maanta waxaa wasaaraha cusub Cabdi Sheekh Axmed iyo xukuumaddiisa la ansixiyay oo maanta wasiirkeena cadaaladda uu nagala joogo ustaad Faarax Abdulqaadir aad ayaan kaga mahadcelinaynaa iyo dhammaan iyo wasiirkayga qorsheynta qaranka oo jooda Saciid Daani iyo xildhibaanada dowladda Soomaaliyeed. Soomaaliya way naga dhaxaysaa. dood dadka qurbaha jooga iyo dadka halkan jooga inaan ka tashano danaheeda ka tashano waa wax muhiim ah. aad iyo aad idinku mahadcelinaya idinku dheeraanayo xogaa emotionka ayaa kacsan sababtu waxay tahay ummad haddayna wada hadlin meel ma gaarayso. fagaaruhuna waa fagaare waxaan u bixinaa waxa weeye in runta laga hadlo. Soomaali meesha ay ka bogtaan ka hadalno si aan xalki u helno. haddaan aan ka hadalin wax runta ah waan been isku sheegno wixii salka gunta kama dhismayaan. si taa loo gaaro guntan ka dhisno ayaan waxaan u yeelno khubaro Soomaaliyeed aan dhihi karno arrintan maanta governance iyo dowladnimo idinkana waa idin furan tahay. waxaan marka hore doonayaa inaan wax yar ka sharaxo barnaamijka fagaaraha soo shaqeeyo. fagaaruhu wuxuu leeyahay anshaxaas oo ah marka uu hadlayo gastiga ama qofka markuu marafka hadlayo in qofka la dhageysto la xushmeeyo oo aan mataqaan lala hadlin aan la interrupt gareelin oo fikirkiisa aad loo xushmeeyo waliba martidan qaaliga noo ah. second midda labaad waxa weeye haddii aad disagreement qabtid farta taag gacanta taag markuu barnaamijka dhamaado su'aal qabtid microphone lagu keenay dhalinyarada microphone ku keenaysa su'aashaada comment-kaaga baxso ogow waa la kala fikrad duwan yahay laakiin waddanka Soomaaliya naga wada dhaxeeyo. taas waa muhiim. macnaha dal baa naga dhaxeeyo laakiin waxa laga yaabaa qofka Soomaaliya Somaliland degan, qofka Puntland degan, dadka South West degan, dadka South Central Soomaaliya degan waa la kala fikrad duwanaan karaa. laakiin annagu haddaan waxaan aaminsanahay wada hadal iyo xushmeyn in lagu heli karo Soomaali qurxoon. sidaas ayaan ka doodin haddii ilaahay. barnaamijkan waxaa ka qayb qaadanaya 5 aqoon-yahan ay naga qaadan. sidaan ay u dhici doonaa barnaamijka. saa u socotiin waa taqaan Yuusuf Garaad Cumar la soo dhaweeyay. Abdulrahman Xooj Dabiil oo ah xildhibaan Soomaaliya. Ustaad Faarax Abdulqaadir waa wasiirka garsoorka iyo dastuurka ahna xildhibaan federaal Soomaaliya.
إسماعيل بوبا وزير كهراء المال دبلة دولة الصومال فدرال محمد حاج النور وقيان صوماليات وعن حقا اسكي حقنا وهي من صوصنا هاي نزل سلوية مركا waxay ku dhacaysaa waxa weeye waxaan ka hadlaynaa governance hay'adda governance wasiirka maadaama wasiirka isaga ayaa ugu dambeeyay meesha ka hadlaaya sida mataqaana title-ku yahay marka waxaan marka hore siinayaa in qof walba oo banalka halkaana inay ka hadlaan waxaan ugu jeclahay inaan goor Ismaaciil Buuga what governance waxa ay tahay iyo sida Soomaaliya dawladdu kala soo dhawaado wasiir discussion-kan maanta aynu wadnaa waa mid aad iyo aad muhiim ah oo arko dawladnimo runtii waa waxa hadilmaya muxuu ahaa maanta dadka Soomaaliyeed ka maqan waxaana laga maarmaana dawladnimadu sida ugu timid iyo sida uga tagtay waxay hadilmaya muxuu ahaa arrintaasi ay ku leedahay dhibaatooyinka maanta dadka Soomaaliyeed haysta in aynu bal hadilmay maxaa yara wada eegno oo ogsoonahay ummadda Soomaaliyeed afartameeyihii kontameeyihii waxay galeen halgan siyaasadeed oo ay xorriyad ay ku doonayeen iyo midayn dadka Soomaaliyeed ku noqon maayo waa ka wada dheregsan tihiin qaybihii kala duwan ee arrintaa ka qayb qaatay laakiinse waxa laga shaqeynaya waxa ahayd dawladnimo raadin xorriyad raadin xorriyadda iyo dawladnimadu kolkaas waxa weeyaan laba aan kala maarmin haddii aanad dawlad haysan xorriyadaadu waxa weeyaan wax hadilmaya maxaa dhantaalkaas xorriyadnimadu dawlad la'aantu ay xorriyadnimada ku hayso dadkii afartameeyihii iyo kontameeyihii u halgamayay iyagu culayska waxay arkayeen xorriyadooda waxa ka hortaagani inuu hadilmay ahaa isticmaal la iska kaxeeyo in hadilmaya muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed la mideeyo labadaas ayaa hadilmaya muxuu ahaa culayska la saaray waana lagu guuleystay oo dawladdii waa hadilmaya muxuu ahaa la gaaray dawladnimadii midnimadii labadii qaybood qaybta Ingiriisku haysan jiray iyo qaybtii Talyaanigu haysan jirayna waa midoobay kolkaas dawladnimo Soomaali way u dhalatay haddii aynu ku noqono 9 sanadood ee ugu horeeyay intii aanu hadilmay xukunka militarigu aanu la wareegin waxay ahayd dawladnimadaasi mid la kitaabinayay mid dadweynuhu u hadilmay una soo halgamay kalsooni badanna uu ku lahaa dawladnimada laakiinse haddaad u fiirsato waqtigaas waddankeenu haddii aad u qiyaasto dawlado dhowr ah oo aynu isku dhaweyn waqtigaynu qaadanay iqtisaadka hadilmay muxuu ahaa xorriyadda aynu gaadhnay dawladaha aynu isku dhaweyn Malaysia ka mid ahay waxaan baynu kala horreeyay wax yar baynu kala horreeyay inaga horreeyay dawlado kaloo fara badan oo Asia ayaa hadilmay iyaguna waqtigaasaas hadilmay helaan amba hadilmay waqtigeeda horreeyay maanta halkay socdaan waa aragnaa inakuna halkaynu joogno waa aragnaa dawladnimada aynu raadinaynay maxaa kolkaas helay waxa weeyaan haddaad u fiirsato dawladaha badi kitaabiyey hab siyaasadeed furfuran iyo dhaqaale furfuran waxay ka soo baxeen dhibaatooyinkii faraha badnaa oo waxay gaadheen inay hadilmay muxuu ahaa ay dhisaan nidaam
leh dastuur lagu shaqeeyo la wada aaminsan yahay lagu kala dambeeyo ha noqoto jitaabo laakiinse jitaabadii waxay dhashay dowladihii dhinacaas dilmiye u dhaqaaqay inay hadilmiye muxuu ahaa badi ay guulaysteen dowladihii hadilmiye muxuu ahaa u dhaqaaqay nidaam xidhxidhan iqtisaad xidhxidhan xorriyad hadilmiye muxuu ahaa naaqis ah xorriyaddu hadilmiye waa jirtaa laakiinse xorriyad aan hadilmiye muxuu ahaa taam ahayn dowladihii dhinacaa marayna waa ogsoonahay badi waxa ku dhacay dib u dhac ayaa ku yimid inagu waxaynu ka mid nahay dowladahaas hadilmiye muxuu ahaa waa loo isku khilaafi karaa oo dadka hadilmiye muxuu ahaa faaleeya dowladnimada iyo hadilmiye taariikhda dowladnimadu ay hadilmiye qaadato iyo waxyaalaha waa laga isku khilaafi karaa oo waa jiraan dowladda qudhidoodu hadilmiye muxuu ahaa iqtisaad xidhxidhan xorriyad hadilmiye naaqis ah xisbi keliya qaatay oo haddana maanta meelo hore socdo China-ba ka mid ahoo maanta iqtisaadka ugu ballaaran caalamka hadilmiye muxuu ahaa laakiinse hadilmiye muxuu ahaa waxa weeyaan the economic scale waxa la yidhaahda iyo hadilmiye meeshii imanaya iyo baaxadda waddankan uu leeyahay waxyaalahaas calaa ayi xaal aniga waxay ila tahay maanta dowladnimadeena hadilmiye muxuu ahaa 9 sanadoo ugu horreeyay dimuqraadiyadda hadilmiye la jitaabinay way iska ladnay laakiinse nidaam caalamka kolkaa ka socday oo ah degdeg waxaanay hadilmiye muxuu ahaa waqti way gaabinayaan musuqmaasuq waa badan baarlamaanku waa meeluun hadilmiye muxuu ahaa dad aan waxba garanayn inta isugu yimaadaan ay debate garayaan oo waqtiga luminaya in la soo gaabiyo oo si degdeg ah hadilmiye muxuu ahaa horumarku uu ku yimaado iyo haddii loo baahdo in la dirqiyo horumarku inuu yimaadaan la dirqiyo nidaam sidaasaynu qaadanay kolkaas hadilmiye muxuu ahaa dowladnimadeena runtii haddii aynu taariikhdeennii hore u fiirsano waxaynu aragnaa degdegaas iyo nidaamkaynu qaadanay inuu aakhirtaankii iyadoo odhan karto hadilmiye muxuu ahaa dhinaca hadilmiye xorriyadda iyo xorriyadadoonkaynu doonay iyo midaynta aynu midayno qudhideedu inay hadilmiye iyaduna dowladaha jaarka aynu kula noolahay geeska Afrika ay iska keentay oo arrintaasina ay hadilmiye muxuu ahaa kolkaas dowladahaasina ay ka shaqeeyeen burburka iyo dowlad la'aanta maanta Soomaaliya haysata laakiinse hadilmiye waxaan aniga ila tahay nidaamkii hadilmiye muxuu ahaa la qaatay hadilmiye muxuu ahaa ka hor imanayay hadilmiye xorriyadda iyo hadilmiye horumarka ku dhisan dadku iyagu oo hadilmiye si dabiici ah tallaabo u socda inay ka habboon tahay hadilmiye muxuu ahaa taasi hadilmiye muxuu ahaa runtii waxay yeelatay cawaaqib aad iyo aad hadilmiye muxuu ahaa oo adag aynu aragnay oo hadilmiye muxuu ahaa ambaba ha noqoto dhinacii hadilmiye ciidankii ugu cuslaabaynu samaynay hadilmiye muxuu ahaa Afrikaba la odhan karo laakiinse ciidankii hadilmiye muxuu ahaa wixii aynu u doonaynay muu gaadhine haddii uu hadilmiye muxuu ahaa hubkii aynu soo qaadanay innaka hadilmiye muxuu ahaa isku gumaadnay ilaa iminka hadilmiye muxuu ahaa laga yaabo inaynu isku gumaadayno horumarkii iqtisaadka ahaana hadilmiye muxuu ahaa laakiinse waxaad odhan kartaa biyo shubku wuxuu ahaa 77kii dagaalkii innaka iyo Ethiopia inaga dhex dhacay oo ay hadilmiye muxuu ahaa aynu ku guuldarraysanay runtii aan isu sheegno waxyaalo sabab badan baa jiray laakiinse arrintaas waxay keentay in waddanka inaku halkii aynu ka xoreyn lahayn qaybihii inaga maqnaa innakii aynu isna way iskala xoreynayna oo jabhado ay asaasmeen waxaana u sababaha dowladdii kolkay arrintaasi dhacday ayay la ciiftay oo ay aad iyo aad hadilmiye muxuu ahaa u nuglaatay hor socodkii iyo wax kastaba hadilmiye hoos u dhaceen dabeedna dadweynihii uu fiqadii u ku lahaa dowladnimada intuu cid walba hadilmiye kala noqotay aynu beelo dib ugu gurguuranay dib u gurguuradka aynu beelaha ku gurguuranay
runtii de waxay ahayd hadilmiya muxuu ahaa waqtigii aynu u halgamaynay xorriyaddaba waqti ka horreeyaynu dib ugu noqonay dib u dhac ballaadhan ayaa hadilmiya inagu yimid waxay ila tahay iminka hadilmiya muxuu ahaa taariikhaas baan doonaya inaan hadilmiya muxuu ahaa taataabto laakiinse dowladnimo waxa ay hadilmiya muxuu ahaa seeska ku haysaa midnimo waayo dowladnimadeennii waxaa soo dhex galay beelaysi wax la yidhaahdo beelihiina beel walba waxay istiri oo haddii aan dowladdii ay tahay mid beel hebel u shaqaynaysa idinkuna maa mid samaysataan dowlado yaryar oo aan maanta midkoodna isdifaaci karahayn kana badbaadahayn dowladda kale ee soomaalida jaarkeeda ah ayaa hadilmiya maxaa ahaa maanta ina hor yaalla arrintaasi kasoo noqoshadu waxaa hadilmiya muxuu aniga ila tahay in midnimo ay hadilmiya muxuu ahaa ay hadilmiya dawadu tahay kolka midnimadaa la helo ayaa hadilmiya muxuu ahaa dowladnimadii oo habkan oon kusoo noqon doonaa kolley federaalka iyo dowlad goboleed iyo dowlad hadilmiya muxuu ahaa maamul goboleed iyo hadilmiya hab federaala arrimaha maanta taagan ee discussion kolley oo hadilmiya muxuu ahaa taataaban doono kan dowladnimo ka hadlayno maanta halkay joogaan waa meel haddii aanaynu arrimaheena isku hagaajin ay dhici karto in waddankani burburo uu beelo dowlado yaryaroo beela ka kooban uu u kala burburo uu noqdo mid aan isaguna kala badbaadin dowladahaas ay noqon aan hadilmiya muxuu ahaa kana ani geeska afrika dowladaha ku noolna aanay hadilmiya muxuu ahaa ka adkaysan kara sida waxyihiin oo ay dhici kartaba halkii aynu lahayn waxbaynu ka xoreyn la yidhaahdo ha la xoreeyo dadkan oo ha lasoo guryogeliyo ay dhibaato culus inagu timaado kolkaas sidaas aawadeed waxay ila tahay discussionku inoo socon doonaa dowladnimo midnimo kama maaranto midnimo haddii la waayana dowladnimadii waxaa haystaa dhibaato badan baa haysta waa mahadsan waxaan u sheegay gaasiga deelan kusoo fadhin karaan waana 5 daqiiqo marka hore discussion idinkoo meesha fadhiya marka waxaan ku xijinayaa hadda mataqaanaa Yusuf Garaad waxaan dhihi lahaa horta waa maamul wax kala gooniya uma arko markii laga tago taas sidee Soomaaliya dowladnimo ku helaysaa waxaan u haystaa in dowladnimo aan haysano dowladnimo xoogaa naga dhaawacan ayaan haysanaa oo meel aad u xun gaartay marka hore dowladnimadeena wataan weynay oo markii la burburiyay dowladda Soomaaliya ka talinaysay markaas ama iyadu burburtay ra'yiyo kala duwan ayaa laga qabaa markii laga soo tago nidaamkii soo bilowday 2000 oo si fiican u xoogaystay 2004 markii caalamku wada aqbalay kumeel gaar marayay 2012 magaalada Muqdisho shirki lagu qabtay iyo shirarka kala duwan faraha badan lagu qabtay looga gudbay kumeel gaarkii marka dowladnimo waan haysanaa laakiin waa dowladnimo aan si buuxda u shaqeynay waa dowladnimo dalka wada maamulin waa dowladnimo ku tiirsan ammaankeedii ku tiirsan yahay dowladda shisheeye ciidankood waa dowladnimo dhaqaalaheedii ku tiirsan yahay inta badan wax dibadda laga bixiyay oo ururo ama dowlado kale ay bixiyeen waa dowladnimo farqaha la isku dhagan yahay wali la haysto faarax wana la fadhiya wasiir laakiin wali farqahan ku dhaganahay marka dowladnimadaas sidee u noqon kartaa dowladnimo lagu kala haro oo dadka dowladnimada maamulayana maamulka lagu aamino looga haro ayaguna intan kale ay nasaafgarayaan ama wixii qaran aan uga baahnayn dowladnimo aan uga baahnayn ay noogu helaan taas marka waxaan u haystaa inay wax maalin iyo laba lagu gaari doono aysan ahayn waddo dheer ay qaadan doonto waxaan u haystaa in ay noqon doonto mar walba xilliga la marayo galdaloolada markaas jiran la isu tilmaamo oo markaas waxa taagan sidii loo xalin lahaa hadda magaalada Muqdisho joognaa dhibaatooyinka ka jira hadda wixii ugu dambeeyay waa internetkii oo laga waayay 3G maalmihii ugu dambeeyay dawlad noo fasirtana anaan hayn cid noo fasirtana anaan hayn marka wixii markaa dhaca in wax laga qabto wiigi ka horeeyay hoobiye waxba soo dhacay arrimahaas wax laga qabto aas qaran ayaa loo baxday in la sameeyo marka mar walba wixii markaa taagan waa midda labaad laakiin waxa weeye xageen u soconaa in la isweydiiyo oo bartilmaameed aan leenahay oo bartilmaameedkaasi uu yahay
midka aakhirka aan ku gaari doono nabadgelyo buuxda iyo horumar buuxa aan ku gaari doono iyadoon dhammaanin noloshu waa dynamic mar walba way soconaysaa marka bartilmaameedkaas ayaa su-aalo badan ka taagan yihiin dhinac waxaa laga sameeyey kumeelgaarka waa laga baxay baa la yidhi laakiin haddana dastuurka waa in loo sameeyo maxaa la yidhaahdaa referendum dowlad goboleedyada waa in lasoo dhammaystiro arrimo badan oo dhowra waa la tilmaamay oo way qoran yihiin dhinaca kale markii laga fiiriyana xukuumaddu maalinta ay noo timid waxay noo keentay qodobo dhowra qodobadii in laga haray iyo inay weli jiraan 6 tiir ma hubo taa lafteeda waxaa loo baahan la isweydiiyo marka inaan leenahay bartilmaameed fog iyo mid dhow ayaan u jeedaa midka maalinta taagan wixii jirana xalkeeda la helo midka fogna la higsado oo ay ahaato meesha aan higsanayno dhammaantan wada socono oo waxaa la yidhaahdaa haddii qofkii aan meel u socda aqoonin meel uu socda aanay jirin meelnaba kama habaabo macnaha ma habaabi kartid haddaadan meel u socon marka waa inaan meel calaamadaysano markii laga leexdana aan isu sheegno niraahno meeshaan u soconno saabkuma gaarin waa laga leexday arrimaha kolley aan tilmaami karo oo u baahan in dib loo fiiriyo aniga shakhsiyan waxay la tahay dowladdu inay shacabka inta ay hadda u jirto uga soo dhawaato xukuumadda hadda jirta waxba ma tarayso in iyadu aada isugu mashquulsho baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo madaxtooyadii in la isku mashquulo oo maaragtay ama wax la qaybsado ama wax laga shaqeeyo in iyagu isu sheegaan kuma filnayna annaga noo sheegaan shacabka u sheegaan in wixii markaas annagu ra'yi shacab ahaan aan qabno in ay noqdaan wax la tixgeliyey oo haddii ra'yi ka wanaagsan shacabka ka yimaadana laga qaato hadduusan ka imaanin ugu yaraan loo fasiro waxa la samaynayo iyo waxa socda iyo meesha loo socdo cilladaha jira oo dhowrka aan tilmaami karana waxaa ka mid ah dowladnimadeenni waxay ku soo aruurtay ilaa 500 oo ruux ama dad u dhow oo baarlamaan iyo wasiiro iyo madaxtooye iyo dad kale ku xiran intaasoo la shaqaysta oo maaragtay ayagu isku mashquulsan qarankii oo dhan waxaad moodaa in lagu soo koobay dadkaas markaani waxay la tahay dhalinyarada faraha badan oo waddanka joogta oo aan runtii xukuumaddu wax toosa mana ah waxaan ku eedayo cabinetka maanta jira ama madaxweynaha maanta jira gooni aan ugu eedayo maaha laakiin waa wixii jiri jiray oo dhan intii dowladana soo maray mashaariic loogu talagalay dhalinyarada oo fursado loogu abuurayo ma arko adeeg waxbarasho oo dowlada fulinaysa ma arko qofkii waalidkii ama saaxiibkii ka dhiibi karo kaliya ayaa wax barta jaamacadi ma jirto jaamacadaha wax ku soo baran oo kale ma jiraan iskuulaadka wax ku soo dhigan oo kale ma jiraan loo raadkeedina ma arko inkastoo jaamacadda guddi loo saaray aan arkay maamul loo saaray inay jaamacadda soo celiyaan marka dhalinyarada aslanba in shaqo iyo waxbarasho labadaba fursado laga fikiray oo dowladdu ka shaqaynayso oo haddii ay fikirkeeda haysana ay noo sheegto laakiin meeldhal noqda midda labaad waxa weeye cadaalad darrada iska baahday oo ku saabsan xagga haweenka oo mar walba aad arkayso in raggu culayska saarayo inuu asaga wixii qaybsado wixii markaas ka soo harana uu haweenka ku dayo marka taasna waxay la tahay ma aha runtii waxaan ugu roonaanaya amaan u jeclaanaya haween oo keliya waxa weeye khibradda aan leeyahay iyo nolosha aan arkay shacabka barkii waa haween hadduusan ka badnayn marka shacabka barkii marka laga dhigo inactive ama dadan shaqaynayn hadde marka wax weyn ayaa kaa maqan marka xooggaas faraha badan aqoontaas faraha badan maskaxdaas faraha badan ee Soomaaliya horumarkeeda ka qayb qaadanaysa si toos ah in laga qayb geliyo dowladnimada iyo maamulka laga qayb geliyo ayaan qabaa marka anu si kooban arrimahaas aan tilmaami lahaa wixii su'aal soo baxa ama discussion ku meesha marayana waan ka qayb gali doonaa wadna maasan horta waxaan rabaa inaan idin sheego shalay howlkan aan fadhino waxaan aan ku lahayn shir oo qorordiiq ah allah u naxariistay cabdirasaaq xaaji xuseen prime ministerka labaad Soomaaliya isla markaasna shalay halkan la isku wada raacay inuu ahaa aabihii habsami wanaagga dowladeed ama good governance yani ninkii keenay karti iyo hufnaan 50 sano ka hor ay ahayd markii uu cabdirasaaq uu ku boorinayo ummadda Soomaaliyeed inaan dowladda la dhisi karin dowlad istaagta ama sustainable aan la dhisi karin haddii aysan jirin good governance 50 sano ka bacdi hadda waa ka debate garaynaynaa
taasna waxa waaye waa sad indictment ama mataqaanaa ceeb weyn oo ummadeena kusoo habsatay waa waqtigaas uu allah u naxariistay cabdirasaaq uu ka hadlaya arrimahaas ma dhicin in mataqaanaa la sameeyo good governance waxaa bilowday musuq maasuq iyo eexasho iyo xadgudub xuquuqda bini aadanka ka bacdina militarigii baa yimid militarigii markuu yimidna dastuurkii oo waddanka u ahaa foundationka oo laysku maamulayo oona ay ku qornaayeen qodobadii ugu fiicnaa oo noo keeni lahaa dowlad wanaag noo keeni lahaa dowladdii militariga ahayd waa tuurtay bannaanka ku tuurtay dhowr iyo 40 sano dastuur la-aanaan ahayn markii dambena waa iska burburnayba xuquuqda bini aadankana si adduunka hadda ogyahan ugu tumanayba annagoo ama maleeshiya ah ama annagoo diin sheeganayno meeshaan taagannahan waa ujeedaano magaalada muqdisho nabarrada ku yaalla waa aragteen umalayna waxaas o dhan waxaan ku salaynayaa ma aha waxa korka qofka bini aadanka ka arka wuxuu leeyahay qabiil hebel baa qabiil hebel la dagaalamay waxaas waxba kama jiraan qabiil hebel isku waxay ma jiro waxay ahayd waxaan dhan waxay ku bilowdeen dowlad habsamin wanaagaan samayn weyne markaan samayn weynena aan weynay meel aan ka raadsano xuquuqdeena aan ka raadsano ama aan u dacwoona markaan weyne hub baan qaadana qabaa'iladeenaan ku laabanay marka maxkamaddii waxaan ka dhiganay qabaa'ilkeenaan ka dhiganay institutionskii na waa dhumeen marka lagu leeyahay good governance waa institutionska iyo normska ay ku shaqeynaysa processka ay ku shaqeynaysa labadaba waa lumeen alxamdulilah 2004 dowladdii magaata markii lasoo dhisay waxaa lagu ballamay in mar labaad lasoo sameeyo dastuur cusub in lasoo sameeyo dastuurkaas oo u noqda foundationka keeni lahaa dowlad habsami leh oona ilaalisa xuquuqda qofka shaksiga iyo karaamadiisa waxaan soo jiitanaba dastuurkaana soo dhamaystirnay waxaan rabaana creditka inaan qaadanay creditka ugu weyn inaan siiyo Zahra Umar oo ahayd Independent Federal Constitution Commission kusoo shaqeeya sanooyin fara badan anoo waddanka joogin aniga draftiga aan u weyn dastuurkaasaan hadda leenahay ma dhamaystirna wasiirka dastuurka oo nala joogaa wasiir kaloo asagana arrimo dastuuri u taalo oo la yidhaahdo saaxiibkeena la yidhaha goodaxna waa jira asna faarax marka waxaan leenahay waxa waaye waxa dastuurkan marka waxaa ku dhigan blueprint ama waxaa ku dhigan chart oo lagu director garaynayo habkii aan u samayn lahayn habsami wanaag ama good governance waxaan ka xumahay waxay ahayd in la bilaabo howlaha inta ku qoran oo dhan si aan u helno good governance waxay ahayd in la bilaabo October 2012 haddana waxaan maraynaa 2013 lama sameyno qof ma saarayno resource la-aan iyo capacity la-aan iyo waxyaalo badan iska jira laakiin waxay markaas in la bilaabay ahayd hadda laftigeedana too late ma aha marka waxaan rabaa wax yar inaan dul maro waxyaalaan hor yaal horta marka ugu horeyso si loo helo dowlad good governance leh ama habsami wanaagsan leh waa in la helaa dowlad ilaalisa horta kala baxsanaanta ama hay-adaha dawliga ama afka qalaad lagu yihahdo separation of powers tan ugu horeysa asaaska taas waa si aysan dictatoria u imaanin waa in baarlamaankana xuquuqdiisa uu leeyahay iyo waajibaadkiisa iyo wuxuu qabanayo maxkamadihii ay leeyihiin executive-ki ama fulintina ay leeyihiin si taas loo helo dastuurka wuxuu na farayaa in qodobada soo socda laga shaqeeyo waxyaalaha soo socda kan ugu horeeya in la helo guddiga adeega dastuurka faarax waa wasiirka cadaaladana waa yahay taasoo u taala laftigiisa taas waxay keenaysaa in la helo guddi madax bannaan oo baarlamaanka uu baasgareeyo oo ka madax bannaan fulinta iyo baarlamaanka intaba ka madax bannaan waa guddi gooni budgetkiisa gooni leh iyagaa soo recommend garayna qofkii noqonayo garsoore noqonayo inkastoo executive-ka ay recommendationka iyaga ay u dambeyso ay keeni doonaan ka bacdina laga ansixinayo baarlamaanka taas waxay keenaysaa waxaa waaye guddigaas markuu joogo oo madaxa ka madax bannaan fulinta qofka judge-ka ah inaysan dowladda gadan karin ama aysan amar siin karin inta soo wacdaysan dhihi karin saas wax u amar maxaa yeelay waa ka madax bannaaya
budgetkiisana waxaa la marsiinayaa baarlamaanka. waxaa soo haray baarlamaanka laftigiisa suuq madax bannaanaada. baarlamaanka hadda aan qabno waa madax bannaan yahay, guddoon aad iyo aad u diyaarsan oo cilmi leh ku jiro, laakiin dastuurka siduu la farayo ma madax bannaana. maxaa yeelay waxay in la sameeyo guddiga madaxa bannaan oo baarlamaanka, guddigaasoo gooni u maamulo dhaqaalaha iyo pensionka iyo salariga baarlamaanka. hadda waxay dhacdaa in baarlamaanka uu codsadaa lacag in fulinta uu ka soo qaato, taasna khalad waa in la sameeyo si baarlamaankii uu u noqdaa mid ka madax bannaan executive-ka. waxaa kaloo loo baahan yahay dastuurkuna faraya in la sameeyo hay-adaha dhowra qofka karaamadiisa ama karaamada shicibka dhan, ama afka qalaad lagu yihahdo integrity institutions. waxaa ka mid ah in la sameeyo guddiga madaxa bannaan oo xuquuqda bini aadanka. oo madaxa bannaan markaan leenahay waxay tahay ka madax bannaan fulinta baarlamaanka iyo maxkamadda. oo micnaheeda ay tahay haddii wasaaradda cadaaladda oo wasiirka madax ka yahay ay qof shaqaale ah ama qof kale ku xadgudubto, inuu qofkaas lagu xadgudbay inuu tegi karo guddiga madaxa bannaan ee xuquuqda bini aadanka, uuna dacweyn karo maxkamadda, uuna kusoo oogi karo magdhow uu kusoo oogi karo. waxay tahay in la sameeyo guddiga la dagaalanka musuq maasuq. saa ogsoontihiin hadda saaxiibka yuusuf wuxuu lahaa dowladda service ma bixiso kan waayo. it's quite unfair. sababta waxaa waaye dowladda dhaqaale maba la siiyo, revenue hadda maba samaysano. dowladda dhaqaale wax loo siin waayo waqtigeena saas ahayd. international community funding nama siiso. waxay noo siinin waxa waaye year after year waxaa lasoo saaraa reportsa lasoo saara la leeyahay waddanka corruption ka jiro. runna waa corruption ka jira waddanka. marka ilaa la helo guddi madax bannaan oo la dagaalama musuq maasuqa, isla markaasna la helo hay-ado madax bannaan oo public finance management fiican samayso, sina loo arko waxaana la siiyo inay gelayaan bangigii, hadhowna sida loo isticmaalo oo la arki karo, sida dhaladii loo arki karo. waxaa noo haray in la sameeyaa in loo diyaariyaa waddanka elections in loo diyaariyaa. mar hore in la sameeyo guddiga madax bannaan oo electionada. maxaa yeelay sida keliya oo dowlad legitimate aan la dhihi karo dowladdan waana matashaa waa iyadoo tuulooyinka iyo maxaafadaha dadka laga soo doorta. aniga baarlamaana hadda ku jira, waxaan idin dhihi karaa legitimate ma ahay runti. maxaa yeelay intan baxay meel laygama soo doona, odayaal dhaqameed baa xamar inta isugu nimid aan leeyahay hebel baarlamaanu noogu jiraa. taasna in la sameeyo in la sameeyo. waxaa soo haray national public service commission. shaqaalaha hadda 4.5 wax la keeno leeyahay qof kastaba shaqadii 4.5 baa lagu qaybsanaya. meel lagu gaaray taas ma jirto haddaanan la helin shaqada qofka shalay maxay aftalaani adeer cabdirasaaq allahu naxariisto keena wama justo alfosto justo. haddaysan taas imaanin wax soconaya ma laha. qof meesha lagu keenay mataqaanaa qabiil hebel aan ku matalinaya, waxay in imtixaan la soo dejiyo, qofka CV-giisa la fiiriyo, qofka ugu fiican la qaato. ta kaleeto in la helaa access to information. qofka shacabka inuu heli karo dowladda waxa ay samaynayso oo qarsoon inuu heli karo, inuu inta application diro oo dowladda la yiraahdo 30 bari gudaheed waxaan rabaa faylkaas laga shaqeynayo dowladda decision-ka ku gaartay. hadda waxaan ognahay 3 week la soo dhaafay in dowladda ay ku mashquulsanayd inay magacaawdo gobolka shirarkii la galay oo lagu magacaabayo minuteski la sameeyay. qofka shakhsiga inuu xaq u leeyahay inuu yiraahdo waxaan rabaa minuteskaas inaan helo si aan u darso decision-kaas lagu gaaro. يعني ultimate mataqaana good governance ugu dambeeya kaas waa anoo soo koobayo iga raali ahow. tan kale ugu weyn u baahnaa waxaa waaye media oo independent ah oo ka madax bannaan dowladda, xorna ah, aanan la khashkhashaynin, professionalna ah, noo keentana narrative aan ku wada simannahay. hadda saad ogtiin waxaan qabsaday waxaa waaye maadaama media aanan qabin kun qabiil ama sab kalaana nahay, qabiil kasta wuxuu qabaa narrative iyo history gooni ah oo website-kiisa ka fiirsanaya. website hebel qabiilkaygaan fiirsanaya, narrative-kaasaan ku socda. haddaanan helin hal share narrative waxa yaayaa ma jiraan. waa maadsantiin Soomaaliya xaaladeeda dowladaha adduunka muddo dheer soo jiray iyo kuwii waqti dhow la abuuray sida habsamada u shaqeeya
hay-adaheeda kala gedisan oo dhan ay wada shaqeeyaan dad ayaa dhaliilsan mucaarad ayay leeyihiin waa laga soo horjeedaa ama waa la caaya dhinac kalena waa laga ammaanaa wax walbana way leeyihiin marka Soomaaliya haddaan run isu sheegno waxay soo martay xilli adag sida wasiirku uu horey u sheegay Soomaaliya waxay xorriyadda la qaadatay dawladaha ay ka mid yihiin Malaysia oo kale dawladahaas maanta waa dawlado horumaray laakiin runtii annaka sababihii gadaal noo dhigay ayaan qabnaa sababahaas macno fara badanaa loo samayn karaa qof walbana waxay ku xiran tahay dhinaca uu ka eego marka haddii aan gadaal u dhacnayna sababahaas dagaalada ayaa ka mid ah qabaa'ilka iyo sida qabiilka aan u adeegsano adduunka wadamo badan oo qabaa'il leh ayaa jira dawladaha carabta ka mid ah dawladaha afrikaan oo qabaa'il leh ayaa jira laakiin sida aan u adeegsano qabiilada waa ka gedisan tahay sida dawladahaas ay u adeegsadaan marka sidaa daraaddeed adeegsiga ayaa qaldan mooyaane qabiilka wareer male qabiilka waa la manage garayn karaa waa la maamuli karaa dawladana qayb weyn uu ka noqon karaa waana baaba'aya haddii horumar dhinaca waxbarashada iyo dhaqaalaha iyo isku filaanshaha haddii la gaaro waxaan aaminsanahay inuu sii baaba'ayo laakiin adeegsigii ayaan xumeynay haddii aan usoo noqdo arrinta ah good governance ama maamul wanaag runtii waa arrin weyn waa kelmad weyn inta badan waxaa loo adeegsadaa marka la rabo in laga hadlo hay'adaha dawladda sida ay u shaqeeyaan ama ay u gaaraan go'aanada waxqabadka iyo fulinta marka good governance horta wuxuu imaan karaa marka la helo governance oo basic ah annaka hadda waxaan ku murmaynaa governance basic ma jiro sababtoo dagaaladii la soo maray iyo rafaadkii iyo baaba iyo Soomaaliya soo qabsaday marka sidaa daraaddeed markasta markaan maamul wanaag aan ka hadlayno waxaa loo baahan yahay in aan maskaxda ku hayno marka hore waa inaan helnaa maamul basic ah kadibna waan hagaajisan karnaa ayar ayaa loo samayn karaa sababtoo ah maamul wanaag hawlaha ugu waaweyn uu qaabilsan yahay ama la rabo in wax lagu sameeyo waxaa ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa corruptionka la dagaalanka maaragtay sidbursiga ama la dagaalanka aqoon darrada dhinaca maamulka ha ahaato dhinaca aqoonta guud ha ahaato waxaas oo dhan loo baahan yahay in maamul wanaag lagu keeno runtii maamul wanaaga meel walba ayaa lagu samayn karaa maamulada adduunka loo haysto inay yihiin effective ama kuwa shaqeynaayo si habsami ah u shaqeynaayo mar walba boos ayaa ka bannaan oo laga samayn karo maamul wanaag annaka laakiin basiciyaba hadda isku haysanaa dhowr meelood oo wasiirka iyo xildhibaanka uu taabtay ama Yuusuf uu ka hadlayna runtii anigu waan ku raacsanahay meelo badan oo arrimahaas ay ka jiraan maanta haddaysan dawladdu horsocod ka noqonin xataa aysan tusin shacabka rabitaankeeda inay wax ka qabato laakiin ay haysato dawladda dhibaatooyin ama dhinaca dhaqaale ha noqoto ama dhinaca shaqaale la'aan ha noqoto ama waxyaabo badan oo aan ogsoonahay shacabkuna uu og yahay ayaa waxaa dhici karta in markaas la yiraahdo dawladdu dadaal ayay wadaa dadaalkaasna runtii waxaa hakinaya ma aha rabitaan la'aan ay dawladdu hayso ma aha qorshe la'aan ay dawladdu hayso laakiin waa arrimo badan oo dawladdu laftigeedu ay la ciirciirayso ugu horeeyo dhaqaale la'aan iyo mashaakil dhexdeena ah ama dad badan oo nabad diid ah oo annaka naga mid ah inay noo diidan yihiin in noloshii habsamida ahayd aan ku soo noqono sababtoo ah noloshaas markay soo noqoto ay full noqoto ayaa private sector-ka iyo public sector-ka labadaba dhinaca dadka private-ka ah ama shakhsiyaadka Soomaalida ee shaqaysanaya iskooda u shaqaysanaya oo leh ganacsigooda guud iyo tan dawladda maxaan ku radaa hay'adaha dawladduba ay gaari karaan himilooyinkii loo abuuray markii hore oo ahayd inay shaqo abuuraan inay sameeyaan waxyaabo fara badan oo dadka keeni kara kala dambeyn oo dadkoo dhan ay ka dambeeyaan sharciga waxaan la yiraahdo maaragtay the rule of law ama sharciga oo noqda waxa kaliya ee dadkoo dhan wada haga oo ay ka wada dambeeyaan ayaa lagu gaari karaa horta dawlad wanaagga taasna waxay dhiirigelin kartaa ama improvement ay ku samayn kartaa efficiency-ga accountability-ga oo public sector-ka xaggiisa ah ama la xisaabtanka maaragtay hay'adaha guud ee dawladda in lala xisaabtamo sida uu codsaday xildhibaan Xoosh Jibriilna markaas ayaan heli karnaa xogta aan u baahannahay xogta media kaliya lagama heli karo sidaan ognahay siduu xildhibaanka sheegay media maanta qolo walba website ay samaysatay website-yadaas qaarkoodna runtii ma aha website-yo maaragtay ama telefishanno
u shaqeynaya danaha guud ee qaranka, danaha guud ee ummadda Soomaaliyeed wax u shaqeynaya ma aha. dad qaar business ayay ka wataan waxyaabahaas oo dhan. waxaasna waxaa laga yaabaa inay si aan toos ahayn ay u effect garaynayaan danihii iyo ulajeedadii dowladda ay lahayd inay ka gaarto arrimahaas. marka haddii la sameeyo improvement dhinaca efficiency-ga ah, informationkii loo baahnaa, riboodyo fara badan ay dowladdu soo saari karto ayaaba laga heli karaa. media in laga sugo maba ahanba. taasna waxaa lagu ciribtiri karaa corruption-ka, waxaana lagu faafin karaa dimuqraadiyadda. waxyaabahan la yidhahdo democratization-kana sidaas ayay ku sahlanaanayaan. dadka markay ogaadaan waxa ay rabaan inay ka hadli karaan, sida ay rabaan inay u hadli karaan, meeshay rabaan inay ka hadli karaan, ayay dimuqraadiyadduna ku baahdaa, maamul wanaagana uu ku imaanayaa. aniga intaasaan kusoo gabagabeynaa. waana mahadsantihiin. waxaan jeclahay inaan si kooban inaan idinla hadlin sidii waagii academica aan ka hadli jiray iyo jaamacadaha iyo aan joognaay idinla hadal ee aan idinla hadlo waxa xaaladdeena dhabta ay kadibna aan su'aalaha aan dhegaysto wixii aan wax ku biirin karay. xukunku waxa hadda laga hadlayaa waa xukun. xukunku waxa uu leeyahay dad wax xukumo iyo dad la xukumo iyo wax la isku xukumo. marka haddii waxa la isku xukumayo la waayo ama mararka qaar iyadoo waxa ay jiraan la isla fahmi waayo amaba la isugu kalsoonaan waayo, dadka oo dhan waxay wada noqonayaan waxaan la kala garanaynin waxa wax xukumaya iyo waxa la xukumayo. waa laga yaabaa hadda markaad bulshadeena aada u eegto inaad kala garan wayso qofka xukumayo qofka wax la xukumayo. tusaale yar haddaan idiin soo qaado, meesha xukunka uu awood badan yahay waa xabsiga. yani qofku waa xiran yahayba isagu, shabaq buu ku jiraa gadaashiisu oo ku jira, qofna banaanka uu joogaa. miyaa laga shakinayaa in oo dadka ay isxukumaan? yani qof wax xukumay qof la xukumay inay leeyihiin miyaa laga shakinayaa? dadkeenaan kala hadeertaan waa su-aalo badan baa laga yaaba in la isweydiiyaa wax xukumay aan wax xukumin iyo awoodda xukunka, laakiin kuwa miyaa laga shakinayaa? maantaan tegay xabsiga, marka dadka xabsiga ku jiro waxay u hadlayaan sidii dadka wax xukumaya oo kale. dadka wax xukumayana waxay u hadlayaan sidii dadkii la xukumayay oo kaleeto. waana kala garan waaya runtii, aniga oo kala garan la waxa oo mararka qaar saxda iyo waxa khaladka ah, oo markaan dhegaysta kan iyo markaan kan dhegaysta iyo yaan ka soo tegay. taasna macnaheeda waxaa weeye marka ummad marxaladahan oo kale ay gaarto wuxuu way isku wada qasmayaan. mararka qaar marka waxaan soo qaadanaynaa aragtiyaal, dabeecado, wax aan akrinay, wax aan jeclaan lahayn, markaasa waxaan iloobaynaa xaaladda iyo waxa aan ku sugannahay ee aan ku nool. waxa ugu muhiimsan ee dadku ay waayaan waa kalsoonida. kalsoonidu waxaa badan bay ku timaadaa isu tanaasulka, waxay ku timaadaa cadaaladda, waxay ku timaadaa in dadku dad ay qadariyaan ay leeyihiin oo role model ah oo lagu kala dambeeyo oo la yidhaahdo yaa inoo habboon. kalsoonidu waxa ay keentaa in dadka kala mudnaantooda ay dareemaan marka wax loo tartamayo. oo hadda mararka qaar wax loo tartamayo weligiin ma aragteen qofle waa la iga mudan yahay, xataa walaalkiis, xataa ka soo tagay arrintu qabiil keliya maaha, xataa qofka isku kalaaska ahaayeen, xataa qofka macallinkiisa ah. miyaan aragnay cid qof dhahaya aniga waa la iga mudan yahay, waxaa iga mudan hebel ama heblaayo ayaa iga mudan? miyaanu aragn? haddii marka uu burbur noocan oo kale uu dhaco, kalsooniduna ay lunto, duruufahana aan ku sugannahay, waxaynu u baahannahay waqti kumeel gaara inaan marno, waqti kala guura inaan marno. nasiib darro waqtigii kala guurka uu nagu dheeraaday. markii haddana la yidhi kala guurkii waa laga baxayna, shaqadii kala guurka lama soo qabanin. saas daraaddeed dad kale leeyahay hadda xukunkay yimaadeen oo kumeel gaarkii bay ka baxeen. markii ay meesha yimaadeen waxa ay bilaabeen shaqadii kumeel gaarka looga bixi lahay. waa ta hadda saaxiibada ay tirinayeen kumeel gaarka waxaad looga bixi kartaa waddanka inuu gacantaada ku jiro, authority iyo nidaam waddanka ka taliyaa inuu jiro. miyuu ku jiraa? waa maya.
xataa wax kale iska dhaafa documentigeennii oo hadda dadka ka shaqeeyey dee wasiirkii sharafta lahaa hadda inala jooga saaxiibkay iyo guddigii qaar ka mida ay joogaan malaha iyaga naftoodan ba aada ugu qanacsaneen documentigan kumeel gaarka ah ee 10 sano laga soo shaqeynay 2004 ilaa iyo 2012 waxaan hayaa hadda oo waxyaabaha lagu wareejiyey ka mid ah intaasoo draft oo kala duwan oo la soo sameeyay waqtiyo kala duwan qof kasta hadda haddii la weydiiyana dadka qaar ee xataa kuwii sayaxaya ka mid ah waad maqlaysaan qayladii waxa ay ka sheegayeen iyo kankiiba ma aha iyo waa la bedelay iyo waa la qaatay iyo saana la yeelay iyo noocaas oo kale marka shaqadii kumeel gaarka ahayd yaynu ku jirnaa waa inaynu dib dalkii iyo dadkii aynu u hanano waa in dib u heshiisiintii lagu noqdo waa in dadku waxa ay ku heshiin karaan inta dib la isu warsado waxaas ay ku heshiin karaan la isku dayay in dadka lagu heshiisiyo dastuurkii iyo nidaamkii iyo sharciyadii iyo wixii aynu doonaynayna inaynu samaysano waxa noocaasa marka waxa ay u baahan yihiin dulqaad ay u baahan yihiin dulqaadka marka bulshada dhibaataysan ee uu ku raagay mushkiladda ay ku raagtay ama sidiisaba xataa qofka jiran oo caadiga ah dulqaadkiisa intuu la egyahay soo ma wada naqaan marka ummadduna qofkoo kale weeya mar bay jirataa marka qaar way dhaawacantaa way kala go'daa sida hadda inagii inagu dhaco kaleento marka qaarna way dhintaan ummadaha qaar oo waa la waayaa marka inagu meesha maanan gaarin waxaanu joognaa meel aynu garannay in aynu jirannahay aynu u baahannahay inaynu isdaaweyno mar qaar daawooyin baana loo soo dhoofiyaa kiimikadeeda say isugu taalla ma naqaano mar qaar doos ka badan midkii aanu qaadan lahayn baana la siiyaa markaasaan la suuxnaa waxaan hadda dib u eegayey howlaha aniga wasaaradda aan ka shaqeeyo ee laiga doonayo dastuurka waxaa ku qoran in maxkamadda dastuuriga lagu sameeyo 2 bilood gudahood kulley odayaasha way joogaan ee soo gaaray 1961 baan dastuur yeelanay oo afti loo qaaday 7 sano waxaa laga doodayey iyadoo waqtiga ugu fiicneyd ee taariikhdeenna ee aanu shalay ammaanaynay ah in maxkamad dastuur aynu samaysanay ma samaysanay mase maanan samaysanin sideen ku keennay inaynu dhahno 6 maalmood baa lagu samaynayaa inagoo duruufteenna maanta aysan la mid ahayn duruuftii 61 ilaa 67 u dhaxaysay inaanay la mid ahayn anigu waajibka qaran ee saaran iyo dhaarta ayaa waxay ka mid tahay inaan sameeyo oo aan fuliyo laakiin xaaladeennu waa saas mararka qaar sida hadda saaxiibada ay ka hadlayeen waxaa aada loo raadinayaa xorriyadda waxaa aada loo raadinayaa madax bannaanida hadda waxaa laga hadlay madax bannaanida garsoorka iyo madax bannaanida ee saxaafadda iyo helitaanka xogta waxaan u malaynayaa anigu hadda hotelka intaan soo galay meeshaan ka soo galay ilaa iyo intaan soo socday 7 qof baan la kulmay 7 qof waxay igala hadlayaan sababta ay xukuumadda ay u fiirsanayso garsoorka in la farageliyo inuu u baahan yahay oo wax laga qabto inuu u baahan yahay marka waxaan ka cabsanayaa dastuurka iyo xildhibaanada iyo dadkiina jecel separation of powerska inaan lagu xadgudbin ilaa intee waa spaceka aan leenahay ee loo baahan yahay inaynu saa sameyno dee saxaafaddana ka hadal male anigu waxaan qabaa inaynu burbursannahay waqti baynu u baahannahay waxgaradkeennu meel hadda intaynu wax kala jiidana aanu iska dhigno ummad wax isku mucaaradi karta oo qaarna mucaarad yihiin qaarna ay xukun haystaanoo wax la kala jiidan karaa inaanay meesha olin mararka qaar waa dhabtu markaan ka hadalana kooxo ama ururo ama shakhsiyaad ayaa dowladdaba aan sheegayna ka hanti badan soo ma jirto taas ya soo ma jiro shakhsiyaad ka hanti badan ya soo ma jiraan hal qof maaha maalintaa jira marka meeshaas aynu joognaa hawl inoo wada taallo wey ciddii marka awooddeeda leh ee tabarteeda leh ee aqoonteeda leh ee waxaa wax ka qaban karta iyadoonay wax badan sugin inay waxaa u istaagto oo ay wax ka qabato ayay ila tahay bulshadeennuna siday tahayba nolosheedu way ka xoog badnaan jirtay dowladdu way ka xoog badnaan jirtay xataa markay dowladdu xoogga lahayd haddoo dowladdu ay tabar daran tahay saad jeceshihiin in lagu sifeeyo oo
oo la yiraahdo waa dawladdii tabarta daray in la yiraahdo bulshada ka sii xoog badan marka bulshadaas xooggeeda in la qaato su-aashu waxaa weeye haddii aynu 30 sano dawlad xumo ku jirnay haddii aynu 20 sano dawlad la'aan iyo dawlad liidata iyo dawlad ku meel gaar ah aynu ku jirnay imise sanaynu u baahannahay si aynu u helo kalsoonidii ama dawladdii ama waxa aynu rajaynayno waxa aan rajaynaynana halkeen doonaynaa inay gaaraan waxaan doonaynaa inay gaaraan meesha saaxiibaday badankooda ay ka yimaadeen oo aan u malaynayo in xorriyadda iyo dimuqraadiyadda iyo dawladnimada iyo lagala xisaabtamayo iyaga dee maadaama qaarkood ay yihiin ama qaarkeen aan nahay muwaadiniin waddamo kale ka yimaadeen mase mid inaga inala ego aan ku wada noolaano dhulkeenna ku ilaashanno oo dhaxalkeenna ku ilaashanno oo qarannimadeenna iyo midnimadeenna aynu ku soo celinayno u baahannahay waxaan aad u rajaynayaa inaynu fursado badan isu helo waxyaabaha qaar aynu ka doodna aad baad u mahadsantahay sida ka cad magaca waxaad moodaa in badan dadka Soomaaliyeed u baahan inay fagaaraha isku soo baxaan oo waxyaabaha ka buuxaya laabtooda ay meelo badan uga doodaan taas ayaa waxaan u malaynayaa inay furo u noqon karto iyo muftaah horumarka aan tiigsanayn inkastoo mawduucan uu sidii la baahsanaa maxaa yeelay dawlad wanaag inkastoo uu ku soo koobay laakiin dadka qaybtiisa waxay ka hadlayaan dawladaha noocyadiina soo maray dawladda qaar waxay ka hadleen nooca dawladeed aan u baahannahay qaar waxay ka hadleen sidaan dawlad wanaagsan u gaari lahayn intaba waa mawaadiic ballaaran oo mid walba gaarkeed in loo jecjeeco u baahnayd marka waxaan rajaynayaa mararka dambe in aad loo furo inuu si urakaca u sameeyey inay sidaa isugu timid in niman wasiir ahaan jiray siduu baarax sheegay iyo niman wasiiro doona iyo ay isugu yimaadeen waxaad moodaa iyada naftarkeeda inay macna weyn samaynayso maxaa yeelay laba shay baan anigu is leeyahay dawladda aan doonayna saldhig bay u noqon doontaa dawlad aan ka wada qayb galno oo aan uga wada qayb galno annagoo isku wada kalsoon kalsooniduna waa shay aasaasi u ah in wax la wada dhisto iyo dawlad aan ka wada qayb galno haddii hadda qayb dhistaan hadda qaybta kale aad duminaysa marka dawladna wada leeyahay oo nin walba rool ka leeyahay markuu markaa xukunka hayn wax kalu leeyahay mucaaradka sida Soomaalidu u fasirto si ka duwan inaan fasirno ay noqoto muraayad saxaysa qofka markaa mas-uulka aysan noqon mucaarad bay u tahay macnaheedu waxa weeye waa la dagaalsan tahay sida dhaqanka Soomaalida terminology-giisa gashay marka comments-kay waxa weeye aan u wada dhammaanno sidaan dawlad wanaagsan oo caalamka la jaan qaada aan u samaysanayo inaan isku soo wada duuduubo marka mid waa horta kan xisaabtanka ama accountability oo in ay dawladdu maaragtay accountable u tahay dadkeeda in ay leedahay waxqabad muuqda oo ay tahay transparent oo dadku ay maaragtay arki karaan waxa ay qabanayso iyo qaabkay u qabanayso in ay leedahay karti iyo howl wanaag ama waxa loo yaqaana effective and efficient inay tahay in ay leedahay nacam raacitaan ama u hoggaansanaan qaanuunka oo sharciga la raaco in sinaan iyo wadajir ay leedahay oo equitable-na ay tahay inclusive-na tahay oo loo dhan yahay taasina runtii waxaa waaye dawladdan anagu aad u dhaleecaynaynaa haweenka haddaan nahay oo waxaan leenahay looma dhama oo runtii haweenka aada maaragtay loo hashtaday haddana panelkan in oo maalin walba raggu iyagaana dhibaatada keeno maalin walbana iyagaana wada hadla marka wadahadalka sidaa looma dhama marka midna waxaa waaye inay tahay inay caaboonaan ama responsive ay tahay in ay tahay ka wada qaybgal oo ay tahay participatory oo ummaddu ay ka wada qayb galaan oo hanaan wadaag ay tahay in consensus wax lagu dhameeyo ama go-aan loo dhan yahay mar walba runtii la gaaro marka runtii intaasaa maaragtay soo gabilaana maasantihiin laakiin waxaan hal su-aalaan rabay inaan maaragtay aan weydiiyo wasiirka oo ah maaragtay hadda waxaa tiri maadaama aan waqtigii transitionka howlihii qabyada ahaa aan hadda ku mashquulsannahay marka bal adiga hadda goormaankaa sugaynaa commissionka maaragtay oo constitutionka iyo cadaaladda qaabilsanaa mahadsan waxaan jeclaalahay aqoon-yahanada iyo wasiirada meeshay fadhiyaan in gabar u fadhido waa jeclaalahay
waxaa cadaalad daraday ka mid tahay gabarnoo ku jirto wasiirka cadaaladda noo fadhiya waxaa kaloo oo jiro cadaalad daraa jirto wasiirka howlaa sugayso asaga hadda cadaalad darada socoto oo ka horeysa laguma nasbeynaayo laakiin shaqaa u taalo inuu soo duubto dhabarka soo xirtaa la rabaa cadaalad daraa socoto dadka gaalshirada ku jiro alyoomay ku galeen alyoom qofkii lacag la siiyaa qofka kale waa soo qabaha dala lagu leeximaa meel station male wax male cadaalad dara weynaa ka socoto gaalshirada waa lagu aruusanya dad lasoo gataa ku buuxo wuxuuna waa isaga jiraa dadku waa isku dhex jiraan wuxuuna waa isaga jiraan horta dawladeena iska cay karno dawladda haddaan iska cayno anaka yaa noo bedelaya dawlad kale noogu bedelaayo dawladda maaragta waa ku faraxsannahay inkastoo maaragta haweenka madaxa ka kawayso waa isaga waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo dawladda bulshada rayidka ah ayaa badi waxay ka hadli jirtay dawlad wadaagga marka waa nagula jireen hadda markaan laba stage kale istaagnay oo qaarna dawlad noqday marka aniga waxaan jeclaysanay siiba aniga iyo dadkii lamidka ah in dawladda hadda la dhisi doono ay noqoto dawlad ka timaado bulshada rayidka ah maadaama ciladihii dawladahaas aan sheegaynaa waxaan rabaa arrinta ah muxuu ahaaye dawlad wanaagga waxaa ka horreeyay roob maabkii oo wasiirkayga horeygala joogo wixii la sameyn lahaa aniga waxaan qirayaa faarax inaan la sameynin rabooradii iyo weliga ka bixi lahaa marka waxaan ka wadaana ma aha midaas mid oo xun waayo waxaa la gaarayay oo xoosh ku raacsanahay goolkaas in la gaarayahay oo laga baxo kumeel gaarka ah marka aniga waxaan soo jeedin lahaa is-aaminaad dawladda hore kuwa ahaayo kuwa dawladdaana bulshada rayidka ah iyo dadka oo dawladda noqdeen inaan iswada aamino abuurno kalsooni aan ku wada shaqeyno oon howlahaasayto ku wada gudana ah hal su-aal marka waxaan rabaa inaan weydiiyo madaxweynaha mustaqbalka soo sharaxay yuusuf garaad arrinta uu culus yahay aniga wasiiraan laaksa ana markaa barmo sabaysanaysay waa ogeed inaan ku imid arrinta oo ka leexleexday oo dawlad wanaag ku dhisan waxaa ka mid ah miidiyada waana muxuu ahaye khibradiisa iyo barnaamijkiisa marka arrintaas waxaan jeclaan lahaa inuu si fiican u qeexo marka miidiyada hadda jirtana waa ognahay xorriyadda qofka waa ognahay waxaa kaloo ka rabaa xoosh baarlamaanka ma leeyahay space ay shicibka fadhiistaan ay ku dhageystaan waxa meesha ka socdo adaa xuquuqa aadamiga ah waa mahadsantihiin su-aasha waxaa miidiyada arrinteeda waxay u baahan tahay faahfaahin fiican marka miidiyada hadda dhisan xorraa noqonay dhehen waxay rabaan ay samaynayaan hal walba waxaa weeye siday dadku fasirtaan laakiin hal qodob baa muhiima in la ogaado nidaam walba oo yimaada oo dalka xukunkiisa qabsan markaas ama xisbiga ku yimaado ama qabiil ha lagu soo doorta ama formala kale ha lagu soo doortee waxaa laga rabaa inuu la yimaado engineeringkiisi hadduu engineering uu la yimaado formula waa soconaya dadku wuxuu ka sugayaa ma jiro haddii laakiin uu la yimaado good engineering oo bulshada yani markii bulshada sidaana kale la rabo ila xukum waxaa loo sameeya wax la yidhahda social engineering oo maxay tahay nidaamka social economic in dib loo eego la dhiso oo dadka qaybimo meel lagu jiheeyo ganacsatadii dadku waxyaaba la iswaafajiyaa jira dowladnimadu waxyaabaha iswaafajinaysaa waxay ka mid tahay dhaqaalaha muruqa awoodda sharciyadda mid hore waxaan la yaabanaa ogaa mawduuca governance waa magac mawduuc balaaran wey marka waa wareersanaa saxaada maaa inuu fahmin hadda good governance baa dowladda inuu isu bedelay ama maamul wanaag dowlad wanaag mawduuc laga hadlayo anigoo soo koobayaa waxaan kusoo koobayaa 3 qodob baa looga baahan karaa maamul wanaag waxa weeye in la helo shacab wax sixi kara madax wax sixi karta kor wax ka sixi karta shacab hoos wax ka sixi karaa sida madaxda fiican dooran kara iyo waxa la yidhaahdo infrastructure waa in wax dhisan yihiin weeye kood wax boqon kara infrastructure baaraha ugu fuusay taas maxaa la yidhahdaa waxa lagu heshiiyey infrastructure-kii
haddaan system jirin ama sharci jirin ama wax muftiya jirin shacabka wax ma qaban karo dahra wax ma qaban karo marka hadda aan taaganahay Soomaaliya shacabku anagu ma qabo inuu u diyaarsan yahay inuu soo doorto inuu madaxda saxo ama dowlad wanaagga adduunka horumaray shacabka wax saxa xadiida waxna ogolaado qasmada dowladda inay raacdo waxa shacabka hal qof baa codkiisa u macno sameeya laakiin Soomaaliya duruufta hadda ka jirta daama keenayso marka bunniya taxtiya ama infrastructure ma jiro runtii dib si loo fuliyo dowladnimada sharciga loo fuliyo dib way baa ka jirta taas oo loo garaabi karaa laakiin waxaa loo garaabi karin madaxnimada committee waa soo qaabiyay marka madaxda la rabaa inay isbeddelka keento khasabto inay bunniya taxtiya dhisto xoogga saarto excuses iska dayso la timaado in ayadu magaratay la aamino warkeeda haddana madax la aamin madax maaha waa inay keentaa madaxdu wax lagu aamini karo oo qofka madaxda hadalku yidhaahdo aan aamini karaa haddaan la aaminayn wuxuu yidhaahdo madaxnimadu wuxuu wax macna u yeelanayso mid aan ka hadlaa waxa waaye dowladnimo qolan waxay ka hadashay dowlad qolan waxay ka hadashay dowlad wanaag hadda dadka waana wax aad u kala duwan mawduuc marka inuu dowlad ahaa inay dowlad wanaag tahay inay kala hadlaan fiicnaanay laakiin aniga dowlad haddaan qaado dowlad waxaa lagu yaqaanaa dhul dad calan dhaqaale kuwaasoo haddana amni leh iyo waxyaabihii kaleeto hadda maanta meesha aan ku sugannahay haddaan dhulka soo qaadano ma naqaano dhulkeena dowlad Soomaaliyeed lagu sheego maanta ma naqaano oo qaybo gobolay u kala go'an yihiin qaybo waxaaba haysta muxuu ahay qolooyin kaleeto dhibaato kun aan naga haysata dhankii dhulka caddayntiisa iyo dhismu dowladda ku ahaan lahayn calanka sidoo kaleeto waa aragteen goob kasta calan yaraa laga samaystay calanka Soomaaliyeed 3 sano gudaheed waayo wax ilaahay hadda heybadiisa ku soo celiyay mar hore dhulku yaalay calan Puntland ay calan Somaliland ay calan waxaa jiro Jubaland calan waxaa mar doon North West Central Samayn calankiina saas uu kala baxay oo saas oo calankii madoobaaya jiro oo dhulka lahaayeen asna way jiraan degmooyin iyo gobollo ka babanaya marka calankiina meeshaas uu taagan yahay dadka Soomaaliya dadkiina waa kala qaybsan yihiin qabiilka iyo jiro iyo meesha dad ahaan la qabiila leeyahay oo aad u xun oo dowladnimadeena baabi'inaysa midii xoojin lahayd intaas oo ama calanka ama dadka ama dhulka ilaalin lahayd waa ciidankiina ma hayno oo dhulkeena meel Ethiopia joogo meel Kenya joogo meelna qoladan xalana noo deganaa noo ilaalisa marka waxaan ka hadli karnaa waa inaan ka hadalnaa sidee dowladdeena sidee dhulkeeni calankeeni dadkeeni oo midahooda wanaagsan oo ahaa dhaqaalaheeni markaas nabadeena oo ka shaqeynaa su-aashaasna waxaan hordhigayaa panelka sideen arrintaas uga shaqeynaa aad baa mahadsan tahay runtii wax badan ayaan ka kororsaday su-aalihii iyo doodihii halkan ka dhacay mar kalena barnaamijka waa mahad celinayaa waa jeclaa mawduuca inuu aad u kooban yahay governance meel baa laga hadlay oo waxay ku qoran invitationka kaasaanan anigu soo diyaariyey haddana good governance iyo governmentiba waan maqlay iyadoo la fasirayo haddaan ka tago marka ugu horeysa wasiirka commentiyar haddaan raacsado wasiirka garsoorka iyo dastuurka cidda la xukumayo iyo cidda xukumaysa in la kala garan waayo anigu aad ulama yaabani sababtoo haddii intiini doon raacday ama markab raacday haddii markabkaas baddu ku kacdo oo uu isla gilgisho meelaha qaarna ka darooshado biyo soo galaan intaad iska fadhida ma dhahaysid dadka markabka ka shaqaynayay ayaa qaabilsan qofna biyahaasu dhurayaa qofna meesha isku daya inuu alwaax ku dhejiyo qofna hadduu adkaysan waayo waa ka boodaya oo waa qolyaha dibadaha iska dhiiba marka waxay la tahay waxaan dad la xukumo iyo cid xukunta yeelan doonaa oon si cad u kala bixi doonaa marka si wanaagsan loo xukumo marka taas waa midda kale waxaan jeclahay inaan ku darsado annagu conceptiga dowladnimada inaan ama fikirkaan ka qabno dowladnimada inaan dib ugu laabano bulsho ahaan oo hadda waxaad maqlaysaa markii Cabdullaahi qabsaday ama waxaad maqlaysaa markii Xasan Sheekh qabsaday cid wax qabsatay iyo meel la qabsadayna ma jirto waa dad la doortay oo xilkaas qabtay marka xafiis
markaad hayso waxaad maraysaa xafiiska ayaa haysta yaa madax ka ah lama dhahayo baarlamaanka waxaa haysta jawaari marka arrimahaas ina dib ugu fiirsan haddaad ugu fiirsato haysashadaasi waxay ka tarjumaysaa waxaad meesha ka sugayso in qof kuwa markuu taaglayo inaad adigu doonayso inaad qabato kuwa markuu taaglayso iyo wax lamid ah marka madaxdeennu kuwii aan dooranayna waa dooranay kuwa aynaan dooranay ayagaa noo magacaabay marka in aan sidaas u aragno ugana talagalno sidaas inay ku dhaqmayaan haddiisan ku dhaqmayna marka aan kula xisaabtan sidii loo sheegayba zaynab u sheegtay xisaabtanka midda ku saabsan labada qodob ee media marna waa la weydiiyey qodob kaloon ku darsanina waa jiraa mediaha waxaan rabaa inaan taabto anigu inkastoo wasiir doon ii sarbeebay wax ka weynan doonay marka tan kalena title iga dhigtaa ka jecla haddii wax dowladda aad ka hadlaysa marka laga tago taas anigu waxaan kusoo talagalay waddankan oo 22 sano ka maqnaa markaan kusoo laabtay madaxtinimaan raadiyay haddaan waayana inaan ka shaqeeyo ayaan ku talagalay meesha aan marka hore madaxa ku hayay inaan ka shaqeeyana waxay ahayd mediaha qaranka ma aha mediaha private-ka ah waan isku dayay waanan offer gareeyay service-kayga waxaan qarinayana maaha mana suurto gelin xukuumaddii tan ka horreysay haddana mar labaad ayaan cusboonaysiiyey offerkaas in aan wax ka qabto ama training ha ahaato ama la talin ha ahaato ama shaqooyin kale ha ahaato waana taagan yahay dowladdana jawaab ka sugayaa jawaabta aan ilaa hadda hayana waxaa weeye mid ah in khibraddeeda iyo aqoonteeda loo baahan yahay oo layga faa'iidaysanayo marka taas waa mid aanu shakhsiyan diyaar u lahay waxaan u haystaa mediaha maanta jirta haddii la fiiriyo ee qaranka mediaha qaranka waan kasoo shaqeeyay Soomaaliya 80-maadkii aad iyo aad ay uga sarreysaa meel fiican ay maraysaa marka loo fiiriyo meeshii awal joogi jirtay laakiin waa meel aan aad u habaysnayn waa meel khibrad badan ka dhiman tahay waa meel sharci madax banneeya ama maamula oo ayadana protect gareeya uu ka maqan yahay marka sharciyadeedii in la sameeyo xukuumadda hore way pass garaysay baarlamaanka guddoomiyaha guddiga waa nala joogaa warfaafinta cabdi xaashi xildhibaanka waa nala joogaa marka taasna waxay ila tahay wax baarlamaanka looga fadhiyo weeye haddii khalad ku jiran in laga saxo haddii uu sax yahay in la marsiiyo oo markaa sharci laga dhigo si saxaafaddu ay xorriyaddeeda oo buuxda oo sharci ah ay u hesho ee aysan u noqon wax laga xishoonayo ama loo dulqaadanayo inaysan noqon ee wax sharcigu daafacaya inay ahaato taas waa mediaha waxaan filayaa rajadeeduna tahay mediaha dalkeenu inuu xag sharci iyo xag farsamo iyo xag dhaqaalaba inuu ka kici doono meesha uu marayo meel ka sarreysa sii gaari doono haddii aan biraahdo gunaanadkayga aniga waxay la tahay dowladdeena shacabka Soomaaliyeed anigu waxaan u haystaa shacab wanaagsan inuu yahay dhib badan waa jiraa madaxda dhib badan waa haystaa laakiin shacab wanaagsan inuu yahay dowladnimo inuu rabo nabad inuu rabo laakiin waxaad moodaa boogaha waddanka ku yaalla iyo daqarada ku yaalla oo hadda dowladda maanta joogtaan aysan mas-uul ka ahayn shakhsiyaad la dhihi karo hebel ayaa keligii mas-uul ka ahna aanay jirin in haddana indhaha laga qarsanayo ra-iisul wasaaraheenna hore allah u naxariisto oo darad lagu aasay muqdisho cabdirasaaq xaaji xuseen inkastoo cimrigiisa waqtigu shaqeynaya waqtigu badna muqdisho ku qaatay haddana nin muqdisho ku dhashay ama kasoo jeeda ma ahayn sida hadda Soomaalida isu kala saartay deegaanka uu ka yimidna waa deegaan hadda nabad ah oo laga yaabo in muqdisho ka nabad badan yahay haddana fariin ayuu diray oo uu leeyahay caasimadda Soomaaliya lagu aaso madaxweynihii dalka oo la shaqeeyay garabkiisa lagu aaso macnaheedu waxay na tusaysaa in isagana ay xoog ku jirto annagana uu na tusayo in Soomaalinimadii iyo midnimadii aan la dhaawicin ee la sii xoojiyay laakiin haddana dhinaca kale markaad fiiriso waxaad arkaysaa in aan waxyaabaha kale ee jira ee taas lidka ku ah ee ka hor imaanay cabdirasaaq xaaji xuseen magaalada ku dhashay wiilka ku dhashay maanta kama fakeri karo meeyarka muqdisho waa banaanaanayaa baa la leeyahay inkastoo weli meeyarkii joogo kama fakeri karo inuu meeyarkaa doonto oo caasimadda Soomaaliya uu madax ka noqdo marka in dib laysugu laabto oo la fikero ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay waxyaabaha dhibaatada jira iyo ra'yada kala duwan oo qaba in banaanka la soo dhigo sidan oo kale looga doodo xalka waan heli karnaa markaas
laakiin haddaan qarsanno oo la aamusno oo qoloba sidii xoosh u dhigayay fikir gooniya ay ka haysato qolada kale oo iyadoo ay isu sheegtay keliya isku akriso Facebook marmara wax soo geliyaa halkaasaad ka daalacanaysaa narrativeska kala duwan ee la kala haysto ninka Puntland aaminsan siduu u hadlayo ninka Somaliland aaminsan siduu u hadlayo ninka Muqdisho jooga siduu u hadlayo ninka Jubaland aaminsan siduu u hadlayo ama gabadha aaminsan marka anigu waxaan qabaa in waxyaabaha jira banaanka la soo dhigo la isu sheego xukuumaduna markaas dadku wixii ay ku heshiiyaan oo sidaas wasiirku noo sheegay dadku wixii ay ku heshiiyaan iyo wixii ay ka fursan waayaan ay ku hogaamiso ay ku dhacdo ee aanay iyadu wax hor leh oo keliya qol inta la isku soo xiray meesha madaxweyne loo tartamay mar walba nin madaxweyne soo maray oo madaxweyne lagu celiyay ma jiro macnaha waxaan ujeedaa kama wada laba teem iyo wax lamid ah waxaan ka wadaa qof kastoo madaxweyne noo noqday qof hore madaxweyne u ahaa maaha marka ma taqaanide inta kale la tasho oo gaar ahaan kuwii kaa horreeyay la tasho ninka wasiirnimada ku cusubta wasiirradii hore la tasho ninka guddoomiye baarlamaanka cusub yahay guddoomiyaashii hore la tasho xildhibaanka cusub xildhibaanadii hore la tasho laakiin qolo walba hadday tiraahdo waa kuwii hore waxaa xumaanta keenay maalin walba waxaan kasoo bilaabaynaa we are reinventing a wheel mar walba ama taayarka ee dib loo samaynaya marka intaa waxaan qabi lahaa wada tashigu in intaan ka bato ceeb ma aha waxaan ama ma aqaano ceeb maaha ee maxay kula tahay midda labaadna ceeb maaha in la yidhaahdo ceeb maaha anigu ra'yi waan ka leeyahay laakiin maxaan hadhow la isku qabsan doona adigu aad qabtaa maamul goboleedyada laga qaybgeliyo taladu ay socoto oo wadaag ay ahaato aad iyo aad ayaad mahadsantihiin barnaamijka iyo wasiirka iyo marti sharafkaba waa u wada mahadcelin shacabkaba ay fadhiistaan oo loo ogolyahay dabcan hab loo sameeyaa jiro oo baarlamaanku application loo geysto laakiin dhibaatadana haysta waxa waa saan annaga wada ognahay hadda dadkeena xildhibaanada baarlamaanka ku jiro baarlamaanka aad ku shaqeyn structure ku dhisan yahay waa liitaa laakiin waa laga shaqeynaya hadda baarlamaanka cusub in la dhiso marka kaas la dhiso waxaan qabaa in la sameyn doono laakiin waxaan qabaa zahra iyo dadka qabaan in participationka shacabka ay ka qayb galaan inay guddoomiyaha baarlamaanka ay la fadhiistaan ayaa arrintaas kala hadlaan ogol inay soo yimaadaan dowladda dhexena ay hadilmaya muxuu ahaa arrintaa ka shaqayso iyada oo dowladda dhexe dhinacan koonfurta ay la kala sooco dowladdii koonfureed iyo dowladda dhexe iyadana la kala sooco soocaa loo baahan yahay waayo qofka hadilmayay muxuu ahaa dhinaca koonfurta ka yimaada kolku dowladdii ka mid yahay ma kala sooci karo hadilmaya muxuu ahaa dowlad dhexe iyo dowlad hadilmaya muxuu ahaa goboleed amba dowladnimo hadilmaya goboleed waayo dee ma jirtaba hadilmaya muxuu ahaa dowlad kale oo aan ahayn dowladdaas marka waxaa loo baahan yahay dowladda dhexe inay hadilmaya muxuu ahaa iska soocdo oo ay ka shaqayso dowladahan iminka hadilmaya ama maamulada la dhisayo oo dadyo fara badan oo qaybaha koonfurta ka yimaada ay ogaadaan inay hadilmaya maamul u gaara ay leeyihiin sida meelaha kalena ay u leeyihiin maamul u gaara laakiinse dowlad goboleed iyo hadilmaya maamul goboleedkana in si wanaagsan loo kala qeexo ayaa loo baahan yahay arrimahaasi waxay u baahan yihiin si hadilmaya aada iyo aada u qoto dheer in loo dhex galo iminkana hadilmaya waxay la tahay iminka hadilmaya arrimahaas uma wada hadilmaya magaxii kale laakiinse aan waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay dowlad goboleed maamul goboleed dowlad dhexe waddanka qaybaha oo hadilmaya noqonayo si wanaagsan in hadilmaya loogu noqdo si hadilmaya ruuxana wax looga sheego runtii waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo saaxiibkay Sadiiq Wafaar iyo barnaamijkan fagaaraha oo runtii dadaal fara badan u muujiyey inay Soomaali wada hadlaan oo isu soo dhawaadaan lana taabto arrimo muhiim ah oo annaka oo dhan noo wada dan ah waxaan rajaynayaa in faa'iidadiisa goordhow la arki doono barnaamijkan haddii Ilaahay idmo taas intaas haddaan ku dhaafo waxaan u malaynayaa su-aalihii sida tooska naloo weydiiyey dhammaan waxaa loo dhaafaan u malaynayaa wasiirka anigana u dhowaan maayo su-aalahaas oo wasiirka loo dhaafay ka taaban maayo waxaan rabaa keliya inaan wax ka idhaahdo su-aasha ahayd doorka dhalinyarada
iyo su-aashii gabadha xaliimiyarey ay weydiisay oo ahayd calankii iyo dhulkii iyo dadkii oo kala qaybsanaan iyo tafraarug ay soo dhex gashay midda doorka dhalinyarada aniga waxaan dhihi lahaa doorka dhalinyarada wanaajinta maamulka jira hadda ama maamul u samaynta gobollada sida la doonayo haddii ay suurto gasho sida uu dastuurka federaalka uu qorayo hadda runtii door weyn ayaa uga bannaan dowladdana waxaa waajib ka saaran oo runtii loo baahan yahay inay dardar geliso sidii dhalinyaradaas ay u heli lahaayeen platform ay uga qayb qaataan dhismaha dalkooda platform ay uga qayb qaataan maamul wanaajinta la dagaalanka musuqmaasuqa corruptionka iyo waxyaabahaas oo dhan dhalinyarada runtii sida hadda la sheegay aniga statisticdaas ma hayo laakiin waa suurtagal inay 75% ay yihiin tirakob la sameeyey oo hadda jira anigu laakiin sida la sheegay suurtagal waa sababtoo meel walbo adiga u dhaqaaqdo muqdisho ama gobollada waxaad arkaysaa dad da'yar oo runtii iskoolla dhiganaya ama shaqaynaya ama shaqo la'aan hayso oo meelahaas iska fadhiya dadkaasna runtii waxay u baahan yihiin shaqo abuuris in loo sameeyo daryeel in loo sameeyo lana dardargeliyo si ay uga qayb qaataan mustaqbalka dalkan oo runtii faraxdiisa baxaya sida taasna kulley wasiirka ayaa u dhiibaynaa fariintaas oo naga gaarsiinayo dowladda dhinaca arrintan sidee looga hortegi karaa burburkan calanka ku yimid dhulka ku yimid maxaan ku idhahdaa dadkii qabiil mar hore ayuuna dhex galay waana kala burburiyey faa'iidadiis waan aragnay waa inaan cashar ka qaadanaa calaamadan oo maaragtay dowlad goboleedyada iyo waxaas waa inay ku koobnaadaan calaamad calan inay noqdaan maaha waa inay noqdaan calaamad calaameynaysa meesha goobta dowlad goboleedkaas laga dhisay laakiin jamhuuriyadda calankaan ay leedahay ninkii calankan dhibaato u geystana runtii soomaalida o dhan u dhaawacaya marka midnimada waa lama taabtaan taas intaas ayaan uga bixi lahaa haddii dhulkii soomaaliyeed la kala googooyey oo meel walba dowlad goboleed laga dhisay runtii dastuurka wuxuu caddaynayaa in dowladda federaalka dhexe arrimo fara badan oo isku haynta dowladnimada soomaaliyeed ee lama taabtaanka ah ay jiraan haddii lagu dhaqmo dastuurkaas oo baarlamaanku uu ansixiyey waxaan qabaa in baral ammaan weli la joogi doono hadduu ilaahay constitutional commission iyo judicial service commission iyo waxyaabaha la xiriira oo dhan waa la sameynayaa sida ugu dhaqsaha badan laakiin waxaan doonayaa inaad dadku ogaadaan arrintu inaanay ahayn basi arrin ku taala arrintu inaanay ahayn basi arrin u taala xukuumadda oo keliya xukuumadda door bay ku leedahay laakiin baarlamaanka ayaa isaguna qayb weyn ku leh ama ansixinta sharciyada oo la ansixiyo iyo ansixinta xubnaha golayaashaas ay yeelanayaan laakiin waa qof baa ka hadlay hadday xaraarina waa ku malaynayaa dadka xukunka haysta ama markii dad ay koox ama xisbi xukunka qabsado in social engineering bulshada ay u baahan tahay oo marka engineeringkooda la doonaya runtii dee waqti dheer uma haysano laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan sharxo inagu sida xukunkeena maanta uu ku dhisan yahay iyo sida uu ku yimaadeen xukun kooxeed ma aha iyo xukun xisbitoon dad qabaa'ila oo qabaa'ilkooda ka kala yimaaday oo baarlamaan la isugu keenay oo kadibna dad intay tartameen qofkii markaa ama ugu saaxiibo badnaa ama ugu orod badnaa uu ku guulaystay kadibna inta uu yaqaanay intay isgaranayaan iyo kaliisu meeshay gaarto warse wax lagu badbaadin kara lagu sameeyo weeye barnaamijyo xisbi iyo ay ummaddan ku dooratay ama madax ay ku timaadeen ma jirto haddii ay taa dhici lahaydna sida xukuumadaheenna u dhismeen uma aanay dhismeen ee sida axsaabta xukuumadooda u dhismaan ayay u dhismi lahayd taas baan rajaynayaa inay dadku fahmaan waxaa aada iskaga tiro badan aniga waxyaaba aan la yaabo oo dadkeenna weliba waxgaradkana ay ka qayb qaataan miidiyahan uu ka qayb qaato oo ku saabsan sida wax loo qiimeeyo magaalada muqdisho ammaankeedu inuu sii xumaanayo inuu ka daraayo waanan garanayn meesha laga keenay conceptiska noocaas oo kaleeta waxaan doonayaa inaan sheego inaan waxaas waxba ka jiro dee ammaanxumada adduunka dhan bay ka jirtaa wayna ka dhici kartaa magaalada muqdisho xaafad ka mid ay ka dhici kartaa meelo ka mid ay ka dhici kartaa sida meelo kale oo adduunka ka mid aba ay oga dhacdo laakiin nolosheennu waa caadi bayna kusoo laabanaysaa weliba in badan oo ka mid a
weliba intaa inay caadi kusoo laabanaysana mas-uuliyaddeeda ugu weyn dusha waxaa saartay ciidamada soomaaliyeed ee dusha saartay tusaale waxay kugu filan darad markaynu aaska aadaynay iyo inta kilomitir ee la socday haddii aad aragteen jidadka waxaa taagnaa askari soomaaliyeed buu ahaa oo lug kasta taagnaa marka de haddii ay wax dhacaan ama iyagoo wax dhicinba xaataa ama waxaa dhacay marar qaar aan la garanaynin inteena saameynta leh aynu isla wada qaylino taa nafteeda weeye waxa ammaan darrada keenayso ama dhiiri gelinayso nabaddiidka iyo cadowga dhiiri gelinayso waxaan doonaynaa inaad bal u eegtaan ood u qiyaastaan muqdisho inaad u qiyaastaan baqdaad inaad u qiyaastaan kaabul inaad u qiyaastaan iyo caasimado kale oo adduunyada ka jira inaad u qiyaastaan oo aada eegtaan waxa ka dhacay ramadaanka tusaale lagu soo qaaday xabsiga ku yaalla baqdaad waxaa ka fakartay 1000 qof oo alqaacida ah miyaad maqasheen dowladda la dhaleecaynaya iyo ra-iisul wasaaraha dhacay iyo mashaakil baa samaysmay imaad miyaad ka maqasheen imsaa ay naga awood badan yihiin naga karti badan yihiin naga hanti badan yihiin naga ciidan badan yihiin adduunyada ay taageeraysaa oo ay la taagan tahay haddii hadda xabsigeenu ay 10 qof ka baxsato maxaa ka dhacaya magaalada dabcan inay ka baxsato ma laakiin maxaa dhacay aniga waxaan qabaa mushkiladda qayb weyn oo ka mid a waxaa weeye waxgaradkeena iyo dadka isu malaynaya waxgaradka inay yihiin oo aada u buunbuuniya waxa la raba inaan la buunbuunin waxaan rajaynayay haddii habeen wadiiro madaafiic baa lasoo turo oo isku khilaafsan aan u malaynaya inay madaafiicta ahayd iyo in kaleeto cid ku dhaawacantayna hadda anagu maana arag iyo cid ku noqotay taas sida loo buunbuuniyey ma u tijaabiseen aaskii jumcihii sidaasoo kale ma loo buunbuuniyey ammaanka iyo sida wax looga qabtay bal eega imise qof ayaa wax ka qortay ama ka mahad celisay ama wax ka qabatay ciidanka nabadgelyadu maalin kastaba waxa ay ka hortagaan oo ay dhiciseeyaan faldambiyeed lala beegsanayo dadka soomaaliyeed ee masaakiinta ah imisaynu noo suuragal tahay inagu inaynu dadkaas aynu u mahad celino oo aynu ku mahadino waxa wanaagsan ee ay qabteen haddii ayna inaga imaaninna waxay noqonaysaa garaadkeenu inuu weli uu ka hooseeyo mas-uuliyadda wadareed ee ummad ahaan aan u leenahay inta ay leeg tahay marka waxaan qabaa qiimeynta iyo marka wax la qiimeynaya in dib loo eego maalmahan anigu markaan cadaaladda iyo meelaha iyo tago ee cabashada dadkaan aada u dhegaysta oo ii timaado dadku waxaan dareema markii cabashada aan dhegaysto in ay xaaladdu ka wanaagsan tahay siday ahayd muddo sidan ka horeysa waa laga yaaba qofka markaa cabashada haysto iyo dhibka haysto hadalkaasoo kale kuma dhihi karay war xaaladda hadda waa fiican tahay maan dhihi karaya ma dhihi karaya laakiin runta marka la sheego xaaladda way ka fiican tahay siday markii hore ahayd sababta waa qofka iyo qof kale hadday isqabsadaan qoryay isu qaadan jireen beelay u noqon jirtay madfac baa la isla dhici jiray waana la isbarakicin jiray laakiin qofkii hadda qof kale wax ku sheeganaya ama ka sheeganaya warqaduu qaataayo xeer ilaalin buu tagaayo wuxuu raadsadaa maxkamadu raadsadaayo lawyer buu qortaayo markaasaa waxaanu leenahay maxkamaddu ma fiicna waa run qaadiguna ma wanaagsana waa run dambi baaristuna ma fiicna waa run documentationkuna ma fiicna waa run su-aashu waxay tahay sidee loo hagaajin karaa marka anigu waxaan qabaa meel aanay su-aashu jirin inaanan ka filaamin haddii aynu nahay waxgarad dhalinyarada waxyaabo badan baa marar qaari sooma dhalinyarada in laga qaybgeliyo talada dalka baarlamaanka imise dhalinyaro ayaa ku jirta ma isweydiisa sooma anigaa ka mid ah يعني برلمانك لو بقول تلواتن يشنت بجرته أو يرام كنتم كمية دادون أفرتم كيا مرة عندنا اللي يرى إن ترى ذلك لا يقل قليل اللي يرى برلمانك بجرت عيا ترى ذلك حيصل اللي يرى برلمانك بجرت إن لا تلستان أو إلى الشراء أو يكفي الجرام كل ما دوده أو يتردد ديبان أو أي سنة دلا وزيرين مثل اللي يرى بجرت يعني ويرى بجرت أريا قرار المعلمين وهذا كجرا مركب معناه هذا محاول مركب حاول الرياض والإرادة وماشان وكندر جارتن سياسة هذا عروض والمسوح عليه بيدت قارب دعاية مركب حاول ماشى إنه كدومي إنه فوكس وصارنا إنه واحد وقدام بيتي ثلاث إذا ملاحظ إني تشطر أو ضدك إذا تشطر أنا وحنا بهذا سؤال أمريكا ملاحظ الوقت تربط إنه كجربي تلفالسك
dadkuna waqti badan inuu kaga lumay tala bixinta inuu kaga lumay ilaa la waayaba waxqabadkii la waayo inta tirada dadka ah ama waxgarab ah ama madax soo ahaan jirtay ee la talisa madaxda oo tala ugu tagta ama talan haya inta yaraadaan laga dhegaystaa uma malaynayo ummad saas ummadaha marka oo lamid ah oo noocaas oo kale inay jirto iyo dad kale aniga maxaa la ila tashan waayeen iyo talada dadka maxaa loo dhegaysan waayey iyo maxaa lainoo yeeri waaye wax kasta oo la qoro wax kasta oo la sheego waa lala socdaa xaaladaha dadka jirana waa lala socdaa dadkeenuna bulsho kala qarsoon ma qabo marka aniga in madaxda iyo dadka hoggaanka hayo ama guddoonka baarlamaanka ha noqdo ama golaha wasiirada ha noqdeeno ama madaxweynaha iyo madaxtooyada ha noqdeeno inaynu ka soo qaadno dadaan dadka aqoon oo aanan garanaynin oo aanay isla hadlin oo aanan wax akrinin oo aan tala maqal oo aanan loo tegin taas ma anigu waxaan qabaa arrintu dhinaca kaleba ayay taagan tahay meeshii waxaa la qaban lahaa hadda haddaad baxdaan prime ministerka gurigiisa tagtaan waa gurigiisa sab baa lagu jiraa dadka markaa weydiisa maxaad doonaysaana waxay leeyihin talaana u soconaa guddoomiyaha baarlamaanka hadda u tag waxay leeyihiin talaana u soconaa sab baa loogu jiraa qofkii la qaabil waayna muxuu samaynaya qofkii taliisa la dhegeysan waayna muxuu samaynaya madaxweynahana hadda haddaan raadino oo aynu u tagno isagana sab baa loogu jiraa sooma طبعا هذا هو مقين ديالك وسي ساريها مقين لكن شكل إيجا مجرم dad taagan oo sugaya inay tala siiyaan inay jiraan meesha iyo waxa inaga maqan ee dhabta ah waa inaynu fursad isu siino in la fikiro oo dadka fikirka iyo maskaxda leh inay keenaan fikirkii waddanka aan ugu badbaadin lahaa in madaxdana fursad loo siiyo bal waxa ay dareemayaan inay tahay wixii saxda ahayd inay si u dhaqaajiyaan oo xataa laga warsho informationka hadday maqan oo dadku sidii informationka loo rabay uma helaan oo saaxiibada mid ka mid ah meeshan ka dhahaan malaynaya waa arrintu waa cagsi information aanan sax ahayn inay publicu yimaado ayaa publica yimaada oo weliba mararka qaar speculationa mararka qaar wax la sameeya oo fabricationa bulshada ku sameeya balbalo badan iyo safgarmuha ku sameeya kiciya dareenkooda khariba mararka qaarna laga yaabo inay saameyn ku yeelato xataa go-aanada qaar ee la gaari lahaa ama wax la qaban lahaa inaan xilligii loo baahnaa la qaban waxaan aada u rajaynayaa inaynu bulshadeenu bulsho isu furan oo aanan kala qarsoonayn oo dadku ay iswada og yihiin oo qof kastaa wuxuu yahay taariikhdu wax badan oo kamid ay ka sheegayso inaanan u nuglaanin oo aynu iska dhaafno nugeylka dowladnimada dadka kasoo horjeeda nugeylkooda yacni nuglaanta naga badatay cabsidaa naga badatay qofkii meel ka hadlo ama wixii yaroo dhacdo in wax kasta ay burburayaan oo ay kala baaba-ayaan dadkuna dadkeenu waa ummad nool meesha maanta aynu joognaa dib uma laabanayo soomaaliya ma kala burburayso maantana waxaa laga yaabaa dad badan oo mararka qaar xataa kala go-a soomaaliya ka hadlayay maanta in laga hadlayo midnimada soomaaliya 20 sano ka hor wixii laga hadlayay maanta lagama hadlayo wixii wax ka wanaagsan oo ka duwan ayaa maanta laga hadlaya inaynu aada cinwaano waaweyn aynan loogu samaynin waxayna kala geynay oo wax yar laakiin waxayna midaynay aynu wada leenahay wada la-aan karno oo wax badana in cinwaankeeda la weynay qofkuna markuu hadlayo intaanu hadal ka soo bixin inuu kala fiiriyo maxaa positive ah maxaa negative maxaa wax inoo fiirinayo maxaa wax inooga dhigay dadkeenu hadda markii hadlayaan u fiirso hadda meeshan haddii aan ka amaano saaxiibkay hoosh oo qadarin badan aan u hayno oo aan amaano laakiin marka dambe halkan ba aan sheego inaa alaynahay hoosh arrimaha noocaasa kuma wanaagsana intaan albaabka ka bixin waxaa la sheegayaa waxa xumaanta aan hoosh ka sheegay inta ay la eg tahay websitena waa lagu soo qorayaa waxaa laga yaabaa dee saaxiibadiisa iyo saaxiibadayna inay isdagaalamaan dee beeshiisa iyo beeshaydana hama sheegin soo ma aad baad umahadsantihin salaamu calaykum